السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مانتي بملك سوتشوكتان مركلة دي مدوين بهيد كورتان إذا لها ميك اب كاكسويا عاي يمكن حالنا اللي هاي كسودو هذا دي واحد نقص بيسين فلينكي قيبتي سدحات أما قصدي دعضي قيبتي سدحات إردودي يوديك ما شاء الله هرتينا aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan idinku soo noqdo haddii alla idinku rooyahay malaha tagtaba aad baan idin salaamayaa marka hore waxaan idin leeyahay barnaamijka chalanka like-ta share-ta commentiga deentaba hala dhaafin ilmaade reyaale ku yaaciya marra waaxid markastana marka saa idinku yara hadalka inaan idinku kuleelinayo hamoodinay maxay heedee inta saasay tahayna waxaad iga sugayseen dudi iyo dheeg qaybtii labaad bilowgii jacaylkeena qaybtiisii saddexaad ama part 3 ayaad iga sugayseen sheekadu waxay inoo marisay inankii iyo inantii intay kala safreen mid waliba meel كسولي ميلان دوين باد إيغا موقانيسا يان مادي هانيني مروذان جعلاي كالامار ميميني مارونا باد كسونوكو إنتي دودنا ليضا هاي كربا وان كربا يا صادم بنت فنس مفيعنين لكنse waxaan kugu oray waan ku rabaa waan ku doonayaa sidaan kugu ahay laakiin yar small bit dareemisayo maadaama soo fogaatay wadankiina daanu ki ahayn waxbarashadina ay study weedaba ka miinsanay iska soo maxay hayday iska soo deem iyo raal noqdo codkayga hoos gaban yahay waxyaabaha kale meeshan ka xanjaaleyna ayr hadlo markaasi hadii ay tiri maxay ahaydeen maadaama hooyaday xanuunsatay amaan wadan kale batagay de nooli kulantay baan ku leeyahay kulli nooli kulantay nabadiino ayaan ku leeyahay waan ka xumahay anyway aakhirkii waxa dhacday way la soo hadlaysaa waxaan kugu oraa akhbaar fiican ay habeenkii inta soo dirto faraawil yar iyo wadna yaro saa u dhaqdhaqaaqayo jacaylkiyo dee duuduuban baan aniga odhan karaa ayay soo dirtay bacdeena habeenkii xilliyadii dambe markii dee iska maxay ahayd qof daalan oo jid ku jiro waxaan kugu dhakhtar iyo sheeke iyo howlahaas iyo jacaylkiyo waxaan kugu uri isaguba xaaladihiisa wata ayay maxay ahaydeen kasoo kaban laadahay deetana farintaasay soo dirtay markaasay ku tiri dheegow adduunyada qofaan arko iyo qofaan maskaxda ka sawirto qofaan weligii arkay xataa oo adduunyada maan arag ka qalbi wanaagsan oo ka qurux badan oo ka raganimo badan oo yacni wixii intii oo dhan bay soo xasuusanaysaa oo soo caawinay ay intaas oo dhan kolba waxaan kugu oray ayaamihii safarkuna dadku way ka xasuus badan yihiin marka kale sababtoo ah way ka liitaan oo way ka baahi badan yihiin oo way ka hawl badan yihiin markay safar ku jiraan waxaan leeyahay haddii ay maxay ahaydeen qisadaasi in oon sal idinku leedahay wax ka yar dareemaysaan aad baan uga xumahay laakiin qoladani maaha qolaan aan hadal iyo dee hubun bay Soomaalidu tiraahdaa aan ku soo dhamayn karayo marka waxaan leeyahay inantii baa soo jawaabtay deetana isaguna saacado dambe ahayd wuu iska hurday iyana way iska seexatay hooyadeed bay intay ilaahay u bardeen ilaahay caafimaad sareecana siiyo ayaan iska seexatay subaxdii ayaa wuxuu soo kacay isagiyo indhaha isku haya caajisan oo soo talmo buugaagtaas aad akhrisataa jaamacadda waa tagtaa talowdhoodii yaa kaaga warrama halkay ku dambeysay oo waxaan kugu oray يعني
tacbaanka iyo jacaylka iyo hawlaha ka muuqda aad yaabiso bacdeenna wuxuu arkay basaa markuu moobilkii furay fariimaha dhac iska soo daba dhacaya iyo jacaylka iyo wadnaha saa u dhaqdhaqaaqaya ee ay soo dirtay dhodi bacdeen ay farxay labadiisa indhood ayaa wuxuu kasoo qaaday inuu arkayo oo kale markaasuu saa labada indhood laba ilmo oo qabow ayaa kasoo daadanaysa deetana markaasuu farxaya uu ducaystay una waa layga aqbalay ducadeydii intaan lahaa ilaahu ii soo celi ilaahu dhudiyo nabad qabtay intaan lahaa aakhir way ii soo noqotay umay soo noqon kaaminay tegin laakiin waad kala socdaa sheenban anigu ugu darayaa laakiin inankii iyo inantii halkii bay iska heleen iyana waa soo kacday iyadoo wadan yaroo dee maasha allah iska joogto qurux badan oo meelo yaryaro marka ay baxdo yaro baxdo ay kolba odhanaysaa fiicnaan lahayde inuu dheegla joogi lahaa meelayaabaha qaarkood noocaas oo kala aad baan jeclaan lahaa inaad la joogi lahayd waan ka xumahay aad iyo aad baan uga xumahay inaan kala fogaanay markii horena nasiib isku midnaan lahayn nasiibkayga ayaan rajaynayaa inuu mar labaad isku suukeen celiyaynu is aragno isna wuxuu odhanayaa aad waxaan ilaahay ugu xamdi naqayaa inaabad ii soo noqotay oon mar labaad hadalkaagii iyo codkaagii macaanaa iyo aan maqlay akhbaartaadiyo inaad nabad qabto waxaan kuu rajaynaya inaad sir nabad qabta oo degdega usoo noqon doonto waddankaagii hooyo aniguna aan ku noqon doono hooyadaan ilaahay caafimaad kuu soo siin doono ayaan aad iyo aad u rajaynayaa aamiin baa laysku qorayaa waxaan kugu ori waa laysku maqan yahay jacayl ayaa la go-san yahay xilliyadaas oo kale dee waxaan ku qiyaasa garan maayo inta badan xifdaameehiyo xagga heesaha kuma baaniyey kulliba saaxiibkay allah u naxariiste xagga heesaha boqorkii heesaha ayaan soo xasuustaa markuu leeyahay maxay ahayde sida sagaalka roobkan kuu saamiyayo sida safar qof tegay baan adduunku sugaya ya oo lagu sugayaa dhudiyey aad iyo aad ayaan waxaan kuga uga xumahay deetana bacdeen waa la wada hadlayaa intaasay sheekadu baarti 3 kusoo dhammaan doonaa insha allah waana halkaasaan kasii ama qaadi doonaa inta dambe insha allah waxaan idin rajaynayaa inaan minidada idin yar badiyo marba inta yaran iska jari karo insha allah aad iyo aad baan idin salaamayaa dhudi iyo dheeg iyo jacaylkeenii bilowgii jacaylkeena ayay maraysaa sheekadu marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay iminka iyo mar labaad iyo mar koowaadba aad iyo aad baad mahadsantihiin jalanka like share comment subscribe intaba saara aad iyo aad baan idin jeclahay waxaan idin leeyahay soo dhawaada mar kasta iyo meel kastoo aad joogtaan Soomaali meel kastoo aad joogtaan aad iyo aad baan idin jeclahay sheekadan iyo sheekooyin kale oo badan baa waad iga sugaysaan insha allah waan idin soo diinayaa aad iyo aad baan idin jeclahay dee waxaan idin leeyahay haddii aan in yar laakiin ku dari maayo gidaa maalin kalaan insha allah ka hadli doonaa sheekooyinka hablaha iyo inamada iyo waa Nimco Cabdiraxiin oo idin leh Nimco Weersan oo idin leh mar kasta iyo goor kastaba soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaamayaa thank you one love